marka ingiriiska wuxuu ku maahmaahaa east or west home is the best meeshaa boorka badan laakiin haddii laga shaqaysto tan ka qurux badnaanaysa baana sugaysa cadowgaa qabsaday sidii looga xoreyn lahaa baliyada aanu hadda ka sheekayno wax yar annagu halkaa ka andaqaadayna markaan idinka siiyo wax yar muxuu ahaa background meesha la yidhaahdo asmara shirki aan ku qabanay 6dii bishii September oo uu ka soo baxay isbahaysiga la yiraahdo af Ingiriisiga Soomaaliga lagu yiraahdo isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliyeed Ingiriiskana lagu yiraahdo Alliance for Liberation of Somalia waxaanu concernkaas baa isu kaayay waxaanu ahayn dad kala duwan for the first time in Somali history ama intaanu dawladda noqonay gruubyo noocaas oo qaarkood religious yihiin qaarkood yihiin muxuu ahaay to scholars I don't want to say secular waayo in real terms Somali secularism personalities waa dhici kartaa laakiin segmentation dhan oo Soomaaliya segment dhan oo secular ma jiro secular waa cilmaani wax Carabiga lagu yiraahdo waa dadka waxba aaminsan marka Soomaalidu diin bay aaminsan tahay Ilaahay bay aaminsan tahay digriga ay u kala caabudaan iyo siday committed ugu yar kala variation kala lahaatee wuxuu ahaa shirkii u horeeyay shirkaasi oo gruubyada noocaas waxaanu ahayn maxaakiimta islaamiga waa la socotaan group Soomaalidu u bixisa anagu isuma bixin maxaa la yiraahdaa free parliamentarians group kale oo gudaha ka timid oo gudaha u badnaayo civil society iyo odayaal dhaqan iyo waxaas ahaa oo 18 golba ka yimid iyo groupka hadda idinku aan ka wada joogno oo muxuu ahaa qurba joogta la yiraahdo oo meel badan ka yimid wuxuu ahaa shir cajiib ah shirkaas waxa la yiraahdaa 16 shir baa Soomaaliya loo qabtay anigu 14 baan ka qayb galay for your information from 1991 kii horeeyay Djibouti lagu qabtay ilaa Embagaasi waxaanan tagin Qaahira mid warroorada la isugu geyn jiray iyo Soodari mid Ethiopian ku isugu geyn jireen labada maalintii intaasna ma garanayo wax iga maqnaa waayo by profession engineering degree haystay laba master oo MBA Mareykanka ah haystaa mina economic development in UK I was a candidate of PhD at the University of Birmingham experience baan lahaa arurtaydu UK bay joogtay waa shaqaysan karay haddana shaqaysan karaa meeshaan dhaqaa laakiin I don't understand lacag leeyuma siiyo 16 kaasi marka wuxuu noqday asmara mid kulligood ka duwan kow wuxuu kaga duwan yahay time-ka uu socday 9 maalmood buu gabigiisu socday ayadoo waqtiga xataa la qabtay kuwaas waqtigana waa kaga duwan yahay the most difficult time baa la qabtay oo Soomaaliya gumaysa haysto annaga marka hore dalka ku direeyno ciidanama haysan wuxuu ka duwanaa nooca ama resource-ka lagu bixiyay qof walba jeebkiisu iska soo bixiyay kuwa hore waxa loo diri jiray dadka tigidho hoteelana waa la saxin jiray ajnabi baa ay maamuli jiray qof walba isaga tigidhkiisa soo bixiyay everybody gabar iyo nimba wuxuu kaga duwanaa wax allaale iyo wixii la aaminsanaa oo ka baxsanaa Soomaalinimada iyo diinta xagga la iska dhigay waana labadii aynu waa naga dhuntay iyaduna wax ku difaaci jiray waxaa la baabi'iyay nidaamka Soomaali kala qaybiyay oo Etoobiyaanku intay noo qayilaan ay yiraahdaan waa meesha kaliya u jilicsan yihiin aanu qabanno halka goshaabay nagu dhigan yihiin waxa ay dhulwaagu xoolaha markuu aysado meesha neefku ugu jilicsan yahay buu ku dhigaa meeshay nagu dhiganaayeen baanu iska fujinaano 4.5 ma jirto qof nus ma jiro kulligeeyo kaamil baan nahay we have no half persons isla markaasna kulligeena isku qabiil baan oo waxaynu nahay Soomaali muxuu ahaa
dabcan markaan runta idiin sheego waxay u horreeyo la sameeyey buu ahaa daldaloolo iyo waxna ilaa wax complete ma jiraan dawladdan dhisan oo aad u jeedaan oo Canada oo baan perfect ahayn waxa xisbiyadu mucaaradka ah ay u ordayaan waxa weeye dawladdan waxbay khaladay annaga ka fiican annaga doorto marka maxaa la yiraahdaa continuous isa sixida ba xataa systemka dhisan iyo wax wanaagsan ku jiraan marka I'm not claiming perfection inaanu balaayo ahayn oo boqolkiiba boqol ahayn oo ma idin leeyahay laakiin wixii yani tiirarkii ugu waaweynaa 16 kaashir waxaanu different kaga ahayn ayaan emphasis garanaya waxa la garanaya aan idin sheegaya waxyaalaha loo bartay waxaan diidnay waxa la yiraahdo federation iyo federal iyo waxaan shaqo ku lahayn oo aan ummadda Soomaaliyeed cod laga qaadin oo unitary system baan ahayn 60gii baa referendum la geliyay referendum isaga la eg baa lagu baabi'in karaa ama lagu muxuu ahaa laakiin anaa goostay iyo anaa magacyo la baxay u fiirsada waagi jabaduhu samaysmeen Ethiopia ay muamaradan fulinaysay practically ay u fulinaysay oo SS ka wada bilaabanayay SSDF SSU USC SPM habla waxaas SNM magacyadaas horena af Ingiriis baa ahayn dadka Soomaaliyeedna Ingiriis kuma hadlaan language bay leeyihiin Soomaali marka wiilasha u dhintay magacyadaas oo aan u maleynayo 10,000 ama xataa 100,000 inay gaarayaan obviously 100,000 inay gaarayaan because kuwa u dhintay iyo kuwa muxuu ahaay consequencegeeda u dhintay waa inta Soomaali ka dhimatay weey from 1979 ilaa hadda from 1978 ilaa hadda inta Soomaali ka dhimatay weey marka SS kaas af Ingiriisiga niman warlooraa oo dibadda laga soo abaabulay oo qolada soo abaabushay ay sanaf Soomaali garanayn xataa magacii waa loo bixiyay fiirsada marka iyaga hadii loo deelay magac af Soomaali ku bixin lahayn magac most of the warlords are maxaa la yiraahdaa illiterate way they don't know English waqti saas magacyada wallahi waa loo bixiyay kuwan marka hadda in iyaga laftooda la haystaan ku sheegayaan Somaliland duwa fi Somali language Somaliland wax la yiraahdo dhulka Soomaaliyeed baan leenahay afkan waa ka Puntland loo bixiyay yani tiibay ka soo iyadii moodadii baa wali socota ka walayn haystaa way literally anagu magaca Soomaaliga abaanu la baxnay ninkii raba Ingiriiska ku bedesho Ingiriiska anagu waa naqaan waa ku bedelay laakiin annaka waxaan la yiraahdaa maxaa isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliyeed and this is what we stand for horta sidaas ay ku samaysantay waxa loo baahan let us focus on the future awda waxaan ka hadlaynay university waxa tala saasa wuxuu dhacaana ma waxa tala in meesha la iska joogo oo ninkii conflict cunaya subaxdii cuno ninkii ku cunaya cuno ninkii u shaqeeya aado ahlan wa sahlan for granted halkaan loo qaato -40 degrees baa ayaaraan mid ay ahayd Canada 95kii حتى هداد جوجيسيد it's not a problem إنها ودن كله جوجتد ووانا هذا لكن دل بالله وحلا هاي وحاجر موقتها نيل أورنجري ماسلو ووحو كان needs كهيوم بني آدم كمركا وحالي هذا ماسلو is human needs hierarchy مركا hierarchy of needs بالي هذا مركا كان كواد وبيولوجيكال وعنده يشيف كي وحلا متكا وأنا نوح حكومي كلا بعد وحالي هذا need of association inaad dhul leedahay oo dal leedahay oo dhaqan leedahay oo diin leedahay oo af leedahay waa part of the human need marka kaas baa kugu khasbaya inaad danqatid soo ceshatid waxaas ka maqan laga dhumiyay haddaba markaasaynu soo ceshanaa mise dad iska noolo haddii la kurinay sida xoolihii wax iska cuno ilaa dadka xabsiga ku jiraaba cunno fiicanna waa cunaan sariirana waa la seexiyaan waxa laga xayiri kaliya need of association inay intermingling dadka la sameeyaan baa laga xayiri mugta mis xabsiga weyn baan isaga jireynaa ilaa waa xabsi weyn